بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. walaalkayga sharafta lahu walaashayday daawanayso waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meel kasta aad joogtaan, marka xigta walaalayaal waxaan idinku hambalyaynayaa oo idinku tahniyadaynayaa ciidul adxaaga barakaysan ee nagu soo socota. waxaana idin leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga iyo idinkaba hanaga aqbala acmaasha wanaagsan. walaalkayga muslimka ahow, khayr oo dhan wuxuu ku jiraa, sharaf oo dhanna wuxuu ku jirtaa in la raaco hadigii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. shar oo dhanna wuxuu ku jiraa in nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam la khilaafo. walaal saaad og tahay, cibaado kasta waxay leedahay axkaam iyo adaab loo maro. maanta waxaan rabaa waxyar inaan iska xasuusino adaabta ay leedahay ciidul adxaaga. walaalayaal, ciidul adxaaga waxaa la jideeyaa takbiiraadka, in takbiirooyinka lala yimaado. takbiirooyinka walaalayaal qaabka loola imaanayo oo sax ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kama sugnaanin, laakiin waa la isku khilaafay. arrintaasna waa arrin mataqaanaa khilaaf ka jiro. qof walbana mataqaanaa waxa fiican inuu mar walba ku daydo salafkii waxay akhrin jireen. salafki waxaa la yihahdaa saxaabadii iyo wixii ka dambeeyey. siiqada ugu saxsan oo laga wariyana waxa weeye allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila allah allahu akbar walilahi alxamd. haddii aad aragtid qof kale si kale oo la yimaadayna ha ku inkirin. من نبي قال وصليه إن متقنا بكرة وأصيلا وصدق وعده ونصر عبده وحيالها بدن والآخرين اسكو ما ينكر كرا، لكن واحد في عن سياد خلافك وقب حديد وحي سلفك كسبنا هذه إنا كنا قنتي مالك سوحة الجدية ولا ليال عيد الأضحى إن وحلا بريو حولا لقلو حولا أصنو حلا قليا صلاة كذب صلاة كور قفك قلو وحبك مجران صلاة كذب أيو قليا مع الماء وحلا قليانا وأيام تشريق مع الماء ليرهدو وسدح ذا مع المود وهي النبي صلى الله عليه وسلم يكسب ناتي مالما تشريق دم ومالمو وحلا قلي كروي. أدابتك لو باهي وحوي إني رق يدمر با قبيستان ويستاهريان ودرفي عن حرتان رق وحلو قلي هاي إني سعرفيان دمرك وحوي إني سنمتقانا وحفتان أيسن صوبنين وأيسي خلدان ولا بسنين waxaad ka digtoonootaa walaalkayga muslimka ahow rag iyo dumarba adoo ilaahay weyneynaysid oo ciid u baxay inaad ilaahay subxaanahu watacaala khilaaftid. ragga qaar garkay xirtaan, dumarku qaar mataqaanaa dhar fiican usoo xirtaan, qaar waaba iska madaxa qaawan yihiin. taasna looma baahna. adaabta kale waxay tahay in aad wixii aad gowracday haddaad xoolo biraysay maalinkaas aad udxiyadaada wax ka cuntid. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam udxiyadiisa waxayuu ka cuni jiray. waxaa kaloo mataqaanaa ayadana fiican haddaad u lugeyn kartid meesha lagu tukanayey, banaanka lagu tukanayey, oo aad mataqaanaa lu kutay kartidna ajir badan ayay leedahay. dadka badankood hadda ma awoodaan gawaari iyo waxay qaataan tareemo iyo basas, hadba sidaad awoodid ayaa ku imaanaysaa. waxaa kaloo waajiba walaalayaal oo labaa in la xasuusto salaada ciidda inaad muslimiinta la tukatid, inaad gurigaada ku tukatid ma ahan. salaada ciidda culimmada muxaqiqiinta ah waxay qabaan inay waajib tahay, sida shaykhulislaam raximahullah ibnu taymiya wuxuu soo daliishaday fasalli lirabbika wanxar. wuxuu leeyahy salaada ciidda waa waajib, islamarkaana dumarka kuwa dhiigga qaba mataqaanaa kuwa mataqaanaa guryaha ku jira waxa dhan waxaa la rabaa in loo soo baxo weeye. waxaa kaloo fiican jidkaad ku timaada maana jid kale inaad ka baxdid oo aad martid. waxaa kaloo muhiima in laisku tahniyadeeyo. qaabka laiskugu tahniyadeynana waxa weeye taqabal allahu mina wa minkum, ama ilaahay ha naga aqbalo annaga iyo idinkaba. waxaa kaloo walaalayaal muhiim ah in maalinta ciidda aan loo arkin maalin xumaanta iyo fisqiga loo fasax qaato. dad badan waxaad arkaysaa ciidda maalinkaas waxay tegayaan meel uu ilaahay raalli ka ahayn, shaleemaa la gelayaa, waxaa laga qayb galayaa xaflado, muusiigi ayaa la dhegaysanayaa. xafladii ciiddaa lagu leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. walaal ilaahay baad soo weynaysay. waxaa dhici karta inaad 10 maalmood soo soontay, waxaa dhici karta inaad carafo dhan ilaahay baryaysa oo soomaneed. ma kaa qabataa inaa ilaahay subxaanahu watacaala macsi aad ugu mahad celisid? ka waran adigoo macsidaas ku jirtid hadduu dhibaato kugu dhacdo, hadday meesha kugu soo dunto, haddaad xumaan ku dhimatid. walaalkayga muslimka ahow ka digtoonow inaad ilaahay subxaanahu watacaala aada caasidid. oo walaalkii naasir cadceedo idin leh, ducadiina waa noo muhiim meel kasta aad joogtaan. mar labaad iyo mar saddexaad waxaynu leenahay ciid wanaagsan ciida, ciid wanaagsan ciida. taqabal allahu mina wa minkum. khayrkaa lasii faafiyo, isla markaana xasuusnaada inaad like saartaan pageka naasir cadceed. maanta xoogaa hargabay gu dhacay, waa codkayga waa ka yara duwaya sidii hore. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.